السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحاب خالقة ولكن سلمان دعار هلكا إيغا داونيسana waa سلمان دعار official. أصحاب خالقة waxaan rajeynayaa sida hore ugu ballan qaaday in aan muuqaal isdaba joog idin soo gelin doono insha Allah taala. muuqaalkan hadda idin duubayo waa kay labaad, waa muuqaalkii labaad oo aan channelkayga cusub سلمان دعار official soo geliyo. asxaabtayda khaliga maanta waxaan rabaa inaan meeshan idinku soo bandhigo afar qodob oo ay ku kala duwanaayeen ramadaankii hadda na weydaartay iyo kii ka horreeyay ama ramadaankii 2019 iyo ramadaanka 2020 afar qodob oo ay ku kala duwan yihiin. asxaabta khaliga intaan barnaamijka u gelin waxa mar labaad iyo mar saddexaad ka codsanaya in aad channelka uu cusub yahay subscribe saarto. asxaabta khaliga hadda subscribe saartaan kaliya ma ahan in aad subscribe kaas ku arki kartaan muuqaalada, waxaan idinkugu darayaa oo idin ogeysiinayaa in aad gambaleelka furataan. sababtoo haddaad gambaleelka furan weydo waxaa laga yaabaa muuqaalada inaysan ku soo gaarin adiga oo subscribe saaray. marka sidaa daraaddeed subscribe saar, calaamadda guduudan taabo, gambaleelka riix, kadib muuqaalka waxaad noqonaysaa qofka ugu horeeya oo arko isla saacadda aan soo gelin. intaa haddaa ka gudbo oo aan u gudogalo topic-ani afar qodob oo ay ku kala duwan yihiin ramadaankii hore iyo ramadaankii hadda ahaa ama ramadaankii 2019 iyo kan 2020. number 1 qodobka koowaad, ramadaankii hore bisha ramadaan markay noo dhalatay waxaan joognay salaada waajibka ah iyo midda taraawiixda iyo taajidkana aan ku tukanaynay beydka ilaahi masaajidka. dadka inta badan waxay ka afurahayeen masaajidka oo waxay isticmaalayeen timir iyo biyo, kadib xaafadaha ayaa afur loo doonin jiray iyo markii cabaar meelaha lasoo warwareego. sidoo kale dadka waxaa jira dad aan cunto karsan oo xaafada ka afuro. dadkaas waxay haysteen fursado fara badan oo qaali ah, xaafadda ay ka afuraan intay kusoo afuraan ayay kadib gurigooda u hooyan jireen ama ay magaaladooda kala dhinac ka geldireen. okay, ramadaankaas waa 2019. ramadaanka 2020 wuxuu uga duwan yahay kow, masaajid lagu tukado ma jirin, salaada waajibka, taraawiixda iyo weliba cibaadaadka kale dhammaantood waxaa lagu sameynayay guriga. dadkii xaafadaha la afuri jiray waxay danta ku kaliftay inaysan imaan karin xayiraada magaalada ka jirta daraaddeed, because xilliga afurka ma jirto meel loo bixi karo. qodobka koowaad waa qodobkaas. okay, haddaan u gudbo lambarka labaad, ramadaankan ka horreeyey markii bisha ramadaan ay noo dhammaatay oo ciidda la gaaray, islaamka dhan hal mar ah la ciiday. wax farqi ah oo u dhexeeyey iyo dadka qoqobna ma jirin. laakiin ramadaanka haddana weydaartay saddex jeer baa la ciiday. dad 29kii bay ku ciideen, dadna maalinkii 29 ay 30kii buuxiyeen, dadna maalinkii koowaad oo la soomay maba soomine waxay ku buuxiyeen 30kii. maalinkii labaad oo ramadaan bay bilaabeen, kadibna 30kii buuxiyeen. saddexdaas jeer baa la kala ciiday. okay, haddaan u gudbo qodobka saddexaad oo ay ku kala duwan yihiin ramadaankii 2019 iyo 2020. ramadaankii 2019 ganacsiga iyo magaalada aad bay u shaqaynayeen, way furfurnaayeen, dadkana way faraxsanaayeen, dhar ciid bay soo gateen, dadka dukaamadana lacag fara badan bay faa'iideen oo iisheeg stocki ama wixii ay keeneen waa laga iibsaday, faa'iido fara badanna way heleen. laakiin ramadaanka 2020 wuxuu uga duwan yahay, cid ciiday ma jirto, cid wax laga iibsaday ma jirto. dadkii ramadaanka usoo adeegtay waa ay khasaareen. qodobka afraad, ramadaankii 2019 iyo kuwii ka horreeyey waxaa la samayn jiray in maalinka ciidda ah meelaha playground ama garoonada lagu soo tukado, dadku isu imaadaan, in la isu marxabeeyo, in banaanka loo baxo oo outing la aado ama meelaha baagga la aado oo aad loo soo baashaaro baa dhici jirtay. laakiin ramadaanka 2020 ma aysan dhicin daawadayaasha qaaliga ah, oo dadku waxay joogeen guryahooda, waxayna u joogeen sidii caadiga ah. wax saameyn ah oo muujinaya in ay ciid tahayna ma aysan jirin. asxaabta khaaliga fiiro gaara waa laga yaabaa dadka qaar inay ciideen oo weliba meelo garoomo ah kusoo tukadeen oo xayiraad ayna saarnayn, laakiin inta badan ma aysan jirin farxaddii jiri jirtay ramadaanadii hore iyo qaabkii xataa ganacsatadu u faa'iidi jirtay. sababtoo ah saameynta coronavirus ayaa waxaas oo dhan sabab u ah. marka asxaabta khaaliga ah afartaas qodob ayay ku kala duwan yihiin ramadaankii hore iyo midka hadda ah ama ramadaankii 2019 ama 2020. asxaabta khaaliga maanta waxaan jeclaystay inaan afarta qodob idinla wadaago.
waa laga yaabaa inay wax iga qaldami karaan ama waxyaaba inaan hilmaamay karo ay ku kala duwanaayeen oo fara badan way jiri karaan. marka asxaabta qaaliga ah aad iyo aad baa idin jeclahay. mar labaad waxaan idin leeyahay kusoo dhawaada Salmaan Dacar Official. like iyo subscribe iyo wax walba halala dhaco, comment ha laga bixiyo, share gareeya insha Allah taala. muuqaalada waa isdaba joog, share iyo comment iyo wax walba la dhaco. waa idin salaam dhamaantiin.